السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبردون سلامي ولا دمانتين ميل كستو دنيدا على dadka joogtaan waad salaamantihiin saad u dhantihiin dadka igu cusub ee channelka ku soo biiray ma aragtay soo dhawaada aad baan ma aragtay idin salaamaya magacayga waxa la yiraahdaa Nimca Galaan channelkan waxaan ku soo gudbiyaa barnaamijyo aad u kala duwan oo xiiso leh ma aragtay markaas soo dhawaada dadkii hore ila joogayna waad salaamantihiin dhammaantiin saad u dhantihiin caaw waxaan idin wadaa program ma aragtay ku saabsan saaxiibtinimada waliba saaxiibtinimada waxaan rabaa inaan ka hadlo dumarka waxa la yiri saaxiibtinimada dumarku waa bisho saddexa anigu ma oran waa mahma caam ah oo Soomaaliyeed muhiimaduna macnaheedu dawad garanaysaan horta wax wanaagsan ma aragtay qofku markuu saaxiib leeyahay laakiin saaxiib oo saaxiib ma tahay ma aha marka hore ayaa saaxiibadaada waxa loo doortaa si ma aragtay maxaa la dhahay saaxiibo wanaagsan ayaa la doortaa sooma si ay ahaataba wax ma aragtay adduunyadan hubaal oo garanti ma jiraan saaxiibtinimadu way dhamaataa sida wax lagu dhamaadaan marka waxa wanaagsan ma aragtay markasta maadaama wadad aynu nahay islaam ah in aynu xadkeena aynu ka bixin xaqiiqatan waxa baday dhacda sida aynu u dharagsanahayna uga dharagsannahay yani ma aragtay saaxiibtinimada dumarku inay iska tahay wax iska laba cisho ah majority-gu sida ay u badan tahay yani taas markaan ka sii socdo horta qofka markaad saaxiibada tihiin waa qof aad ma aragtay aad yani aad aamintay weeye waa qof ma aragtay aad ceesh wadaagteen waa qof ma aragtay ceesho milix aad marka iyada ah aad ahaydeen marka waa qof yani aad sirahaaga aad ku qarsan jirtay waxyaabo badanna ma aragtay aadan dadka kale aadan la wadaagi karaynin aad la wadaagaysay saaxiibka ma aragtay ama saaxiibta oo siro badan ayaa yani aad ku qarsanaysa qofka walaalka waa qof aad aamintay saaxiibtinimadu markay saa tahay haddaba waxaa dhacda in dadku ay saaxiibtinimadu dhamaato dadka shaydaan baa saddex ku ah laba isqaba laba ma aragtay saaxiiba ah laba is dhalay laba daris laba wada shaqeeya yani markasta qofka waad iskhilaafi karaysaan marka qofkii saaxiibka markaad iskhilaaftaan oo saaxiibtinimadiinii ay dhammaato dadkeenu dumarkeenu waxay badi sameeyaan gabadhii walaashood ahayd oo markaa ceeshoo milix ay ahaayeen oo ay sirta ma aragtay ku qarsan jirtay oo waxyaabo badan ay la wadaagtay nolosheeda ku saabsan dabcan hadda iyaduba siro badan iyo waxyaabo badan ay iyaduba ay la sheergaraynaysa oo qof dee one way wax ay ma jiraan oo qof afaarihiisa kuu sheeganaya ma jiro adiguna waxbaadan u sheeganayn it goes both ways marka labadii qof isku mid ma ahan qof baa laga yaabaa shaqsi wanaagsan inuu dhashay ama dun wanaagsan uu leeyahay qofka kalena waxaa laga yaabaa qof iska ciyaal suuq oo ma aragtay iska ciyaalka xaafadda inuu yahay marka labadii qof ayaa intuu boodo qofkii walaalkii ahaa walaashiis yani ahayd berigii ay ceeshoo milixa ahaayeen ma xusuusanayo wanaagii iyo walaaltinimadii iyo wixii ay wadaageen u muuqan mayse waxay u wareegaysaa inay gabadhii walaasheed ahayd suuqa ay u gasho oo ma aragtay wax jiray waxaan jirinba wax u badan qiilo waqaala ay ka gudbiso siraheedii bannaanka ay ku sheegto iyo waxyaabihii ay ku qarsan jirtay waxaasina wax wanaagsan ma ahan xaqiiqatan gabdhaheenuna majority-goodu badidood gabdhaha Soomaaliyeed oo waxay yaqaanaan oo dabeecad ay u leeyihiin ma aqaan meel ay aqlaq xumida ka keeneen iyo iimaan daridaas runtii wax wanaagsan ma ahan qofka hadad kala hadeen de qofkii waxa weeye amaansi aradu waa waasi fandashru fil ard maaha qofkii inaad yani aad xagxagatid ama aad waxyaabo noocaas oo kala ah aad kula dhaqantid ma wanaagsana
markasta waxaa la xeeriyaa wanaagii iyo wixii buuggaa iska xir iska iloo iska soco maxaa kugu yani kugu kalifaya oo kugu qasbaya inaad qofka aad waxyaabahaad kula kacdid dabcan waa shaydaan laakiin waxaa xaqiiqa oy tahay mar walba in aan la ilaawin maanta waa adduunyo berrina waa aakhiro carabkan maanta qoyan berrita qoyanaan u maayo marka intaad ilaahay ka baqdaan gabdhaha soomaaliyeed haddii qof noocaas oo shakhsiyaadkaa leh aad tahay inaad iska dayso ayaa adduun iyo aakhiraba ay kugu jirtaa oo gabadha walaashaa markaad kala hadhaan aad afkaaga xiratid ood hore u socotid taas ayaa adduun iyo aakhiraba ay kugu jirtaa wanaag waayo yaa kaa cafinaya dembigii aad gashay gabadha walaashaa xadgudubkii ilaahay xadgudubka ma ogola mana uusan banaynin xadgudubkii aad ku samaysay gabadha walaashaa ah dembigaad ka gashay iyo cambaarayntii iyo wax jira iyo waxaan jirin iyo qiilo waqaala iyo whatever waxay ahaataba yaa kaa cafiyaya weeye dembiga ilaahay kaa cafiyi maayo qofkii aad ka gashay isaga unbaa kaa cafiyi karaya ilaa aaqiruhuna qofkaasi ku haystaa xasanaadkan aad adduunyada wax ka shaqaysanaysana hadhowta waxbuu ku leeyahay yaa khasaaray markaa yaa marka ilaaha laga boqo gabadha walaashaa markaad kala hadhaan ceebaheeda iyo qof aan ceeb lahayd ma jiro iyo siraheeda iyo waxay kugu qarsan jirtay bannaanka ha u soo shaac bixin iyadu way samayn karaysaa laakiin dadku way kala gobonnimo way maxaa la odhan jiray way kala gobsan yihiin soo maa marka wax kasta gobonnimadaa laga raacaa iyo wanaag qofkii adigu og xitaa mararka qaar inuu kugu xadgudbay uu waxyaabo kugu sameeyey aan wanaagsanayn ayaa inta la qoslo ayaa laga socdaa maxaa la iska qaadayaa waxaadan ahayn ku raaci maayaan soo ma waxaa tahay waat waayahay programkii intaasaan uga baxayaa intaynu ku kulmi doono kan ka xigi doona waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu